aan ku bilaabay ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay weerar abaabulana oo kooxda al-shabaab ay ku qaadeen shalay gelinkii dambe ilaa iyo xalay hodheel ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo ciidamada ammaanku ay hodheelka iyo waliba agagaarkiisa ka soo badbaadiyeen boqolaal qof oo ku jiray hodheelka iyo dhismayaasha ku dhagan. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee weerarkaasi iyo waliba sida saaka xaaladdu tahay waxaan ku hordhaweyd khadka magaalada Muqdisho kula hadlay wariyaha BBC ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo aan weydiiyay faahfaahinta wixii dhacay. cabdiraxmaan saaka xaaladda magaalada muqdisho way degan tahay gaar ahaan aagga uu ku yaalo hotelka Elite Hotel oo ah meeshii shalay weerarku ka dhacay. khasaaraha weerarkaasi uu dhaliyay ayaa kordhay. afayeenka booliska Soomaaliya Sidiiq Aadan Cali oo xalay waqti dambe hadlayay waxa uu sheegay in 16 qof lagu dilay weerarkaasi sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 13 qof oo kale. wuxuu sheegay 16 qof ee dhintay in 5 kamid ay ahaayeen kooxihii weerarka soo qaaday. sidoo kale wuxuu sheegay in 11 qof ay ahaayeen dadkii hotelka iyo aagiisa ku sugnaa. weerarku wuxuu bilowday 5:10 daqiiqo gelinkii dambe ee shalay wuxuu soo gaaray ilaa 10kii habeenimo. 5 saac oo xiriir ah ayuu socday. afayeenku waxa uu sheegay in sababta waqtiga dheer weerarku u socday ay ahayd in ay doonayeen in dadka hotelka gudihiisa ku jira inaanay dhibaato soo gaarin inta weerarku socdo. wuxuu sheegay ilaa dhowr boqol oo qof in laga soo badbaadiyay weerarkaasi. cabdiraxmaan wuxuu ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo inta lagu dhuftay derbiga hotelka deetana rag hubaysani ay hotelka galeen halkaasoo ay tacshirad ka bilaabeen iyo rasaas ciddii ay arkaanna ay halkaasi ku tooganayeen. hotelka Elite wuxuu ku yaalaa xeebta Liido waana hotel cusub oo dhowaantan si casri ah loo dhisay wuxuuna ka mid yahay hoteeladii ugu dambeeyay ee magaalada laga furo. dabcan hoteello hore oo magaaladan hore looga furay dhammaantood ama intooda badan al-shabaab hore ayay weerareen. weerarkan shalay waxaa sheegtay al-shabaab wuxuuna ka mid yahay weeraradii ay soo qaadaysay oo ay ku beegsanaysay hoteelada oo ay dabcan sheegtay in ay yihiin xarumo dowladeed inkastoo dee dabcan hoteeladu ay yihiin hoteelo ganacsi oo cid kasta ay timaado. dadka hoteelka wax ku noqday waxaa ka mid ahaa dadkii wadada marayay. sidoo kale waxaa ka mid ahaa shaqaale rayida oo dowladda ka tirsan oo dee kafe iyo shaah usoo doontay hoteelka. sidoo kale mid ka mid a ciidamada ammaanka ayaa la sheegay in uu isna dhintay iyo qaar ka mid a ilaaladii hoteelka. waxaad moodaa in bishan iyo bishii ka horeysayba in weerarada qaraxyada ay soo kordhayaan. 6 bilood ee ugu horeysay sanadka waxaa moodaa in magaaladu ay aad u xasilooneed oo qaraxyadu ay aad u yaraayeen laakiin bishii aynu soo dhaafnay ee July iyo bishan August inay qaraxyadu soo kordhayeen. hore waxaa loo weeraray laanta canshuuraha ee kasoo horjeeda dekada weyn ee Muqdisho. sidoo kale waxaa gaari qarax loo adeegsaday lagu weeraray taliyaha militariga. sidoo kale qarax waxaa isna lala beegsaday xarun ay leeyihiin ciidanka militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 27aad. weerarkan shalay ayaana u dambeeyay cabdiraxmaano taasoo warwar badan gelisay dadweynaha magaalada oo muddo in 6 bilood hore ee sanadkan ay ka nasteen qaraxyada laakiin hadda labadan bilood ee ugu dambeysay in ay qaraxyadu aad u soo kordhayeen. wariyaheenna magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan aad buu u mahadsan yahay. dhinaca kale Maxamed Ibrahim Macalimu oo horay u ahaa shaqaalaha BBC da haatan ah xogayaha guud ee ururka Isutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed wuxuu ka mid ahaa dadka weerarkaasi ka badbaaday oo ku sugnaa hotelka Elite xilliga uu weerarkaasi ka dhacayay wuxuuna iga waramay sida ay wax u dhaceen. بسم الله الرحمن الرحيم walaal aad iyo aad u mahadsan tahay. shalay abaar saacadii markay ahayd 4tii galabnimo ya maaragtay ama 4tii iyo barkii maahaasi anagoo fadhina hotelka Elite magaalada Muqdisho xeebta Liido ku yaala ayaa waxaa la qabsaday maaragtay qarax aad u weyn markii uu horeysay oo markii hore waxaan aragnay wax sidii briq oo kale hilaac maaragtay waxaan xigay qarax aad u weyn qaraxii markuu dhacay dadkii oo dhan is dhexyaacay dadkii oo dhan isku dhacay uura madooba cirka qabsatay iyo qiiq alaab soo duulaysa. waa garan kartaa qofka waxaa ka lumaya maaragtay controlka iyo dareenka. anigu waxaan wada fadhinay nin saaxiibka oo Cabdirasaaq Cabdullaahi la yiraahdo waan saaxiib ahayn marka isagii ayaa maaragtay aan wada fadhino dhinacii waxaan rabay inaan wada cararno marka dhinacan u cararnay inaan hubsano marka ima suginayo maaragtay gacantan anoo ka hayo aad u cararay xabadihii socday kamid ahayd ayaa maaragtay midna lafta kaga dhacday midna ay maaragtay wadnaha kaga dhacday oo
dhiigbax gudaha ku dhacay marka banaanka ku tagay kadibna isbitaal maaragtay loola cararay meeshaas ku dhintay Allah u naxariistay nin wanaagsan oo ahaa oo maaragtay agaasimo waxay ka tirsan wasaaradda warfaafinta isagoo wasaaradda joogo maaragtay ka soo wacay gurigiisii ugu yimid oo u yiri maaragtay soo shaahno halkaasaan wada aadnay marka Allah u naxariisto sidaasay maaragtay wax u dhaceen oo isaga uu ku geeriyooday xilliga uu weerar ka dhacay marka dad intee la eeg ayaa markaasi ku sugnaa hotelka wallahi dadka horta aad u badnaayeen laakiin sidaan aaminsanahay 80-90 dadkii meesha maaragtay joogay way badbaadeen dad iraad maaragtay 25 ilaa maaragtay 20 ee la qiyaasa inay halka ku dhinteen oo maaragtay soo dhaawac uu badan yahay dad badan oo maaragtay wadada maraya jira dad badan oo maaragtay meel ka soo maaragtay booday ayaa jira waa dib badnayd maaragtay xaaladda markaas oo kale qofka waxa ka lumaya maaragtay nidaamkii meel aad karta male aniga alxamdulillah maaragtay waa fariistay ma cararin markii ugu horeysay ilaa aan qowfsado waxa meesha ka socda markaas meesha xabadu ay ka yar tahay oo carar dhinacaasaan aaday biyaarka ka booday dhinaca badda oo cararay wax dib badan ay ahayd maaragtay inaad maaragtay aga ku baxsato oo ma ilaahana badbaadiyay ilaaha badbaado leh laakiin waxaan aad uga xumahay ninkaas saaxiibkeena uu ku geeriyooday dadkana maaragtay dad badan oo rayid oo meesha fadhiyay waxaa la ii sheegay inay qaarkoodna dhaawacmeen qaarna ay maaragtay dhinteen inta uu weerarkaasi socday marka maxay indhahaadu qabteen mathalan dadka raggii maleeshiyaadka hubaysnaa ee weerarka soo qaaday oo kale iyo dadkii hotel ku sugnaa bal jawiga siduu ahaa walaalo wax la kala garan kara ma jiraan xabad socota iyo quuf iyo meelo naftaada meeshii aad isleedahay xagee ku baxsataa oo aadba yaad maaragtay fiirinaysaa ee qof soo socda iyo meeqay yihiin iyo mar dambaan maaragtay hadda leeyahay 4 ay ahaayeen dadka waxaas waxa ogaan kara mar dambaan la ogaan karaa laakiin markaa hore dadku waa wareeraya qof walba meeshii maaragtay uu ku baxsan karo labada qof ay joogtaa hataa ama saddexda qof wada joogtaa isma hubsan karaan marka xaalad adag ay ahayd marka runtii aniga inkastoo qaraxyo badan aan joogay laakiin markan dhagihii oo dhan ay oodmay maaragtay wax aan maqlayay ma jirin waxa maaragtay aad samayn kartaa oo ma jiraan ilaaha badbaado ilaahay badbaadiyay marka meeshaasaan maaragtay ka baxay dad badanna maaragtay xalay ilaa 10 ku jireen oo maaragtay halkaas ku go'doon ku ahaayeen inkastoo markii dambe la soo badbaadiyay oo ciidamada amniga ay gaareen marka waxan waa wax maaragtay aad ugu soo noqnoqdo Muqdisho gaar ahaan meelaha dadka ay aad isugu yimaadaan sida hoteelada waaweyn ee muhiimka ah la dhiso hotelkan hadii la dhiso kamid ah hoteelada Muqdisho ugu dambeeyay laga dhiso dad badan soo jiitay marka meelahaas oo kale waa meelaha maaragtay ayaga bartilmaameedka u ah al-shabaab oo dabcan aan qiyaasay inay ka dambeeyeen ama ay ahaayeen kuwii weerarka ka dambeeyay kaasi wuxuu ahaa maxamed ibraahim macalimo oo khadka telefoonka iigu warramay oo kamid ahaa dadkii weerarkaasi ka badbaaday haddaba magaalada Muqdisho qaraxyada ay bilooyinka ka roonayd inay dib u soo noqdaan oo bishani oo kaliya ay dhacaan ilaa iyo 4 qarax maxaa sababay su'aashaas iyo su'aalo kaleba waxaan u bandhigay taliyii hore ee nabad sugidda General Cabdiraxmaan Tuuryare wuxuuna markaasi ugu horeyn uu ku bilaabayaa bal sida uu u arko waxyaabaha qaraxyadani haatan keenay oo maadsan tahay waxaan isleeyahay nimankii qaraxyada soo diri jiray ayaa weli waqti fiican iyo xuruuf fiican ay ku nool yihiin marka meelihii joogeenna waa joogaan dagaal oo magaalada Muqdisho ka baxsan oo weerar weyn oo lagu qaaday oo ayaga saamay karan ilaa hadda ma maqal inuu bilowday wax yar oo ku dhifo ka dhaqaaqa mooyaane arrintaas waxay noqon kartaa inaan ayaga culays la saarin oo culays uusan saasnayn oo ay fikirayaan waa qodobka labaadna xamar culays laga saaro ciidamo badan ha lagu daadsho laakiin farshaha markasta way bedelayaan oo haddii meel culays laga saaro farsho kale u bedeshaa duruufta xasiloon la'aanta siyaasadda ay keenaysan ay ayaga saacidayso oo ay helayaan dad badan oo siyaasad ku mashquulsan oo ayaga ku mashquuli lahaa culayskaasna uu ka degayo marka arrimahaas iyo arrimo badan oo kale ayaan isleeyahay way sabab u tahay marka muddo 6 bilood ah qarax sidaa u weyn ma uusan dhicin marka laga reebo 4 qarax ee bishan aynu ku jirno dhacday marka inay qaraxyadu soo noqdaan maxaa loo aanin karaa waa maxsan tahay waa la dadaalay dhowrkii bilood la soo dhaafay waa la roonaa laakiin waxa lagu roonaa ma ahayn qorshe istiraatiiji oo dhameystiran ma ahayn dadaal yar oo xamar laga sameeyay ay ahayd marka waxaan isleeyahay nimanku mar haday meelihii ay haysan jireen weli ay haystaan mar haddii canshuurtii magaalada ay weli qaadanayaan oo qarash la'aan aysan hayn mar haddii qalabkoodii iyo hubkoodii iyo waxyaabahoodii ay haystaan ayagaa xilliga munaasabka ah oo ay weerar qaadayaan ayaga ayaa go'aan ka
gaarayo ee ayaga go-aan loogama gaaro, laakiin ayagu go-aan waxay nooga gaaraan sida aan amnigeena ula falgelayn. marka waxaa laga yaabaa maanta ay hoteelo qarxiyaan in hoteeladii iyo baabuur qarax raadintiisa lagu mashquulo, haddii bistooladaydu ay dilka badiyaan in bistooladaydu iyo xaafadihii lagu mashquulo. waxaan laakiin weli lagu fikirin nimankii weli waa nool yihiin, waa soo duulayaan, meelaha ay kasoo duulayaan xoog ha loo weeraro oo ha loogu tago aad looguma fikirin maa qiyaasaya. marka dagaalka asaaskiisu waa kaas, amnigu inuusan aad ugu mashquulin siyaasadda oo amniga uu ku mashquulana waa muhiim. waan gartay marka sida adiguba aad ka dhawaajisay waxaa jiri arrimahani siyaasadana kolley kama badna, sida in la soconana amniga ciidamada ayaa gacanta ku haya, marka sidee siyaasaddu amniga u saamayn kartaa baad isleedahay? waxay u saamayn kartaa dadkii siyaasiyiintu waa kala jiidanayaan, dadka siyaasiyiinta haddaysan wax ku heshiin shacabku qaarna dawladdu taageersan yahay, qaarna dadka kale oo siyaasadda danaynaya ayuu taageeraya. waxaa laga yaabaa ciidanka amniga sugaaya marka inaan isku si loo arag. labo, marka dawladda mandate fiican ay haysato, waqti fiican ay haysato, sida ciidamada ay maogtahay kalsooni u haystaan iyo marka dawladda mandatekeedu dhacayana isma lahan. annagaa kusoo shaqaynay, annagaa isnaqaana, wax yar baa xaalad abuuri kara. ciidankii la rabay in loo fahmo inay amnigii sugayaan oo guryihii baarayaan oo nafta badbaadinayaan ayaa at the same time waxaa loo fahmi karaa ciidan wax aburinaya. marka sideedaba siyaasadda inay degto oo layska fahmo siyaasiyiintu isfahmaan ayaa muhiim ah. haddaysan dhicin caqabada ugu weyn dhinaca ay ku leedahay waa dhinaca amniga. ugu dambayn mar haddii markaa dalka uu u gudbayo marxalad kala guur oo doorasho, si marka loo xaqiijiyo amniga dalka maxaa tallaabo oo markaasi loo baahan yahay in la qaado? waxaa loo baahan yahay waxyaabaha soo soco. kow, in dawladdu muujiso in hay-adaha amniga ka shaqaynaya dadka ay ka madax bannaan yihiin siyaasadda, waa qodob. qodobka labaad, in la fahamsan yahay marxalada lagu jiro, ciidamada dadka saraakiisha ee maamulaysan lagu wacyigeliyo, lagu tababaro, oo dadka howlgalada loo diraayo tababar joogtaa iyo wacyigelin joogtaa la siina. saddex, waxaa aada u muhiima dawladdu gacanna inay doorasho iyo wadahadalka siyaasadeed looga shaqeeyo, gacanna nimankii lagu raacdaysan. haddii nimanka aan la raacdaysan inta dabawareegan lagu jira magaalooyin badan ay soo qabsanayaan, xamar ay kusoo aruurayaan, dawladahana ayagaa rida nimankaan ogaada, dawladaha ayagaa rida. mar kasta aniga ilaa 4 dawlad lasoo sheegay oo Abdullah Cabdullahi Yusuf, dawlad kasta marka xilligeedu dhammaan rabo weerarada iyo howlaha ay fulinayaan waa ka badan yihiin marka kale. marka 6 bilood soo socota aad bay khatar u tahay, in muddaabay isku diyaarinayeen oo anagu aan ugu qabnay inaan ka raynay, oo maadaama aan wax dhicay. qodobka u dambeeya waxa weeyaan kalsoonida dadka in la soo celiyo, dadka la wacyigeliyo, oo ciidamada iyo dadka la isku xiro. xuquuqdii xorriyadda in dawladdu ka qaaday haddii tuhunsan yihiin, kuwan kalena ay xuquuqdii nafta ka qaadayso, laba xuquuq ayaa qofkii ka maqnaanaysa. marka dawladda amniga ilaalinaysa inaysan dadku xuquuqdooda siyaasiga aysan uga baqin, amniga muhiimay u tahay. kaasi wuxuu ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Jenaraal Cabdiraxmaan Tuuryare oo khadka telefoonka igu warramayay.